waana wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka dalka TV Media qodobada wararka daawa doontaana waxaa kamid ah ninkii dusiyay laptopkii ku qarxay diyaarad ka kacday garoonka Muqdisho oo geeriyooday magacaabista ra'iisul wasaaraha cusubna heer gabagaba ay maraysa haddaba waa kuma ra'iisul wasaaraha oo Xasan Sheekh soo xulan doono faahfaahin kala duwan waxa ay ka soo baxayaan hanti dhowraha guud su'aalo oo weydiiyay wasiirkii uu shaqada ka eriyay ra'iisul wasaare Roble iyo qaybta dambe warkeena oo aad ku daawa doontaan hay'adda Human Rights Watch oo warbixin cusub ka soo saartay xasuuqii ka dhacay deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe qodobada maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janalka dalka TV Media fadlan daawade haddana nagu cusub tahay nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada hela wararkan u baahino aragtidiina halkaas nagu reebo muuqaalkana si share gareeya laagtiina waa inoo dhiirigelin haatan ku soo dhawaada qodobada soo faahfaahsan madaxii hore ee amniga garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada Muqdisho Cabdiweli Maxamed Macow ayaa isbitaal ku geeriyooday 6 sano kadib markii loo xiray kiiska caalamka oo idil gaaray waa sidoo uu ogaaday dalka TV Media Cabdiweli ayaa waxaa lagu helay dambi ah inuu gacan ka geystay duusinta bam lagu soo dhaxqariyay laptop kaas oo ku qarxay diyaaradda Dal Airlines balse aanan geysan waxyeello aad u weyn Cabdiweli ayaa waxa uu qaadanayay xabsi daa'im lagu xukumay haase yeeshee waxaa isbitaal la geeyay kadib markii uu aad ugu xanuunsaday gudaha xabsiga sidoo uu ogaaday dalka TV Media weerarkii Dal Airlines oo dhacay 2 Febraayo 2016 ayaa aad u qabsaday warbaahinta caalamka wuxuuna ka shifay mid kamid ah xeeladaha ugu waaweyn ee loo adeegsan karo in lagu qarxiyo diyaaradaha laptopka ayaa qarxay 20 daqiiqo kadib markii ay kacday diyaaradda Dal oo ku socotay magaalada Djibouti waxaana ku dhintay hal qof oo la tuunsan yahay inuu ahaa qofkii waday ee fuliyay qaraxa diyaaradda ayaanan gaarin waxyeelo badan waxayna awood u yeelatay inay dib ugu soo laabato garoonka diyaaradaha aadan cadde Maxamed Ibraahim Yaasiin Colaad oo ahaa madaxa shirkadda Daalo ee xilligaas ayaa sheegay in qofka qaraxa fuliyay iyo rakaabka diyaaradda saarnaaba ay ku qornaayeen inay raacaan diyaaradda Turkish Airlines balse cimilada oo xun waqtigaas darteed ayay soo gaari weysay magaalada Muqdisho sidaas daraadeed diyaaradda Dal Airlines ayaa laga codsaday inay shacabkan geeso Djibouti si diyaaradda Turkish Airlines halkaas uga sii qaado kooxda Al-Shabaab ayaa muddo 10 maalmood kadib sheegatay mas'uuliyadda qarxa oo waqtigaasi ayadoona sheegtay inay beegsanayso diyaaradda Turkish sababtuna ay tahay in Turki ay xubin ka tahay gaashaanbuurta NATO ee reer galbeedka ku midoobeen wixii markaasi ka dambeeyay Turkishka ayaa aad u adkeeyeen baaritaanada dadka raaca diyaaradahooda Muqdisho oo hadda ay baaraan dad Turkish ah iyagoo aan aaminaynin dadka Soomaalida geesta kalena magacaabista ra'iisul wasaaraha cusubna heer gabagaba ay maraysa haddaba waa kuma ra'iisul wasaaraha uu Xasan Sheekh soo xulan doono Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu la soo baxay guul la yaab leh isagoo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee mar labaad ku guuleystay xilka qaranka dhaqan ahaan magacaabista ra'iisul wasaaraha waxay dhacdaa caleemasaarka madaxweynaha kadib taas oo muujinaysa xil wareejinta balse baraha bulshada ayaa durbadiiba la boodeen faafinta mala awaal ah xilli madaxweynuhu uu wada tashiyo masiibada heysata dalkan iyo Xasan Sheekh ba waa in dadka aysan akaadsiinyo lahayn waxa laga yaabaa inuu ku dhibtoodo sidii uu heli lahaa qofka u cuntama shuruudaha xafiiskiisu uu dajiyay musharxa maadaama xilheentiisii hore uu madax wareer ka qaaday qof aan karti lahayn amaba se aan lagu sameyn baaritaan xogan ila xogogaala ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu doonayo qofka ku haboon shaqada Soomaaliya waxa caado ka noqotay in madaxweynayaashu ay magacaabaan in ka badan hal ra'iisul wasaare muddada xilheentooda waxa soo taraya doodaha ku saabsan tayada cidda noqon doonta ra'iisul wasaaraha si loo soo afjaro mala awaalkan ayaa waxa eegayna cidda ku haboon xilligan adag jagada ra'iisul wasaaraha sideedaba musharaxu waa inuu noqdaa qof dowladeed oo daacadnimo iyo kalsooni ku darsaday aragti dheeri oo uu ku curin karo isbedel iyo caqli oo uu ku hagi karo xukuumad daciif isagoo aan xafiiska u soo jiidin kana soo horjeesan mudnaanta ololihii doorashada madaxweynaha balse aan hayn malafsanaya hantida qaranka run ahaantii madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu xilheentiisii hore ku xujoobay xilli wadaagista dad la iska hubin tayadooda iyo muushino aan dhammaanaynin oo ka dhashay isqa qabsiga hoggaanka qaladka wuxuu ka imaanayay
dastuurka qabyada oo aan kala saaraynin awoodaha iyo khilaafka oo suuqa lasoo dhigay. Si looga fogaado dhaqankaasi waxaa loo baahan yahay inuu qofku noqdo khibrad, karti iyo hufnaan qof leh, fahamsanna habraaca baarlamanka si uu dabada uga riixo dhamaystirka dastuurka. Qof diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay inaysan jirin wax soo jeedina oo rasmi ah oo cid loo jeediyey, balse ma xumaan lahayn in la tijaabiyo dumar, taas oo noqon doonto horumar casri ah oo uu dalku hore ugu tilaabsaday. xasan sheekhna wuxuu taariikh wanaagsan u leeyahay inuu haweenka u dalacsiiyo darajooyin sarsare waa siduu u qabay shaqsigaasi. balse ilgaar ayaa lagu hayaa qofka loo xulan doono xilka ra-iisul wasaaraha, inkastoo haatan tirada shakhsiyaadka loo saadaalinayo xilkaas ay sodomeeyo kor u dhaafeen, waxaana dadku qaar ay qabaan inuu diyaarsan yahay shaqsiga uu madaxweyne xasan sheekh u xulan karo xilka ra-iisul wasaaraha maadaama uu yahay mas-uul horeba xilka madaxweynaha usoo qabtay, mar labaadna xilkan loo doortay, fahamsanna dhibaatooyinka ra-iisul wasaarayaasha iyo khilaafyada ka dhasha. waxaana la rumaysan yahay in shaqsiga uu xulan doono xilkaas uu yahay qof uu kasoo dhex xulan karo xisbigiisa UDP. halkaad weli daawadayaal nagala socotaan waa janalka dalka TV Media. faahfaahinana waxay ka soo baxayaan su'aaluhu hantidhooraha weydiiyay wasiirka ra-iisul wasaare Roble shaqada ka joojiyay. xubno ka socday hantidhooraha guud ee qaranka ayaa la kulmeen wasiirka arrimaha dibadda Cabdi Saciid Muuse Cali ee dhawaan shaqada uu ka joojiyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa hore ugu eedeeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ku tagrifal awoodeed markii uu ku sameeyay shaqo joojinta. kulanka Cabdi Saciid iyo xubnaha ka socda hantidhoorka guud ee qaranka ayaa yimid kadib markii uu ra-iisul wasaaraha dalbaday in hantidhooraha iyo hay-adaha amnigu ay baaritaan ku sameeyaan tallaabooyinka wasiirka, gaar ahaan fasaxidda markab siday dhuxul sharci daraa. wasiirka shaqada laga joojiyay ayaa dhankiisa xaqiijiyay kulankan, isagoo qoraal uu soo saaray ku yiri waxaan kulannay xubno ka socda xafiiska hantidhoorka guud ee qaranka, waxaan ka wada hadalnay sidee wax u jiraan, waxaana ka warsugayaa wixii soo baxa. 24 bishan ayay ahayd markii uu ra-iisul wasaaraha shaqo joojin ku sameeyay wasiirka arrimaha dibadda, sidoo kalena uu baabi'iyay warqad wasaaradda arrimaha dibadda ay ku fasaxdeen markab waday dhuxul sharci daraa oo ku xirnaa xeebaha dalka Cumaan. arrimahan ayaana imaanaya kadib markii uu Roble sharci daro ku tilmaamay shaqaalaha wasaaradda ee la bedelay ama shaqada laga qaaday laga soo bilaabo 1 Janaayo 2022 uuna amray in shaqaalahaasi dib loogu fasaxo howlahooda, dibna loogu celiyo goobihii iyo xafiisyadii ay ka shaqeynayeen. waa hagaagi daawadayaal, iminkana waxaanu eegaynaa hay-adda Human Rights Watch warbixin ayay ka soo saartay xasuuqii ka dhacay deegaanka Golole ee gobolka Shabeellada Dhexe. hay-adda xuquuqul aadanaha Human Rights Watch ayaa warbixin cusub ka soo saartay xasuuqii 2 sano ka hor ka dhacay deegaanka Golole ee gobolka Shabeellada Dhexe, kaas oo lagu dilay ilaa 8 qof oo ahaayeen shaqaale caafimaad. hay-adda ayaa ugu baaqday madaxweynaha cusub mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu dib u eegis ku sameeyo dhacdadaasi si loogu sameeyo baaris dheeraada. waxa uu ku bilaabi karaa inuu amar ku bixiyo in dib u eegis lagu sameeyo baaritaanada dowladda federaalka ah ee weli la sugayo ee ku saabsan dhacdooyinka halista ah ee lagu weeraray dadka rayidka ayaa lagu yiri warbixintan ay soo saartay hay-addaas. qoraalkan oo dhinacyo badan taabanayay ayay ugu horreyn ku yiraahdeen 2 sano ka hor tuulada Golole ee gobolka Shabeellada Dhexe Soomaaliya waxaa ka dhacay xasuuq ba'an oo lagu xasuuqay 8 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka. gelinkii dambe ee Maaj 2020 5 nin oo wajiyada soo duubteen, 4 la sheegay inay wateen dareeska dowladda ayaa 7 nin oo shaqaalaha caafimaadka ka afduubteen xarun caafimaad oo ay maamusho hay-ad aan dooli ahayn. waxaa kale oo ay kaxaysteen nin farmashiye ka ag dhawaa xarunta iibinaya daawooyinka. dableyda ayaa 8 qof soo dhaqaajiyeen iyagoo indhaha ka xiray, waxayna ka tageen dumarkii ay isla shaqeynayeen. muddo 24 saac ku dhow ayay bulshadu isku dayday inay soo hesho raggaas. gelinkii dambe 28 May ayaa meedadkooda oo rasaas lala dhacay laga helay meel ka baxsan tuulada. dilalkaasi waxa ay halakeeyeen bulshada ku nool deegaanka Golole, kuwaas oo ka qiirooday geerida dadkooda. dhalinyaro badan oo ay qaraabadooda
ugu yeereen rajada ugu weyn ayaa reerkooda u hiiliyey. Dilkan ayaana sidoo kale argagax geliyay guud ahaan dalka. Labada maamul ee gobolka iyo kuwa dowladda ee Muqdisho jooga ayaa bilaabay baaritaano, balse 2 sano kadib ma jirto wax ka soo baxay baaritaanadaas ayaa lagu yiri warbixintan. Sidoo kale isla warbixintan ayaa lagu yiri madaxweynihii dowlad goboleedka Hirshabelle ee xiligaasi waxa uu sameeyay guddi baaris, wuxuuna ballan qaaday 30 cisho gudahooda ay ku soo saari doonaan natiijada baaritaanka. Laakiin tani weligeed ma dhicin. Sidoo kale ma jirto wax natiijo ah oo ka soo baxay baaritaanka oo ay wadeen waxda dambi baarista ciidanka booliska Soomaaliyeed ee CID-da. Ehelada iyo asxaabta 7 qof ee shaqaalaha caafimaadka ayaa si isdaba jooga ugu baaqayeen cadaalad. Dhowr ka mid ah asxaabtooda oo goobjoog ka ahayeen afduubkan ayaa u markhaati furay baarayaasha duruuf adag. Dhacdada naxdinta leh ka sokow baaritaano kale oo lagu sameeyay dilalkii iyo waayitaankii dadka rayidka ahaa ee sanadihii ugu dambeeyay ayaana sidoo kale la soo gabagabeen, taas oo ogolaanaysa in isla xisaabtan la'aanta ay sii jirto oo ay ehelada wax jawaaba waayaan. madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ballan qaaday inuu mudnaanta ku siinayo dib u habeynta sharciga iyo garsoorka. Waxa uuna ku bilaabi karaa baaliyiri in uu amar ku bixiyo dib u eegis lagu sameeyo baaritaanada dowladda federaalka ee weli la sugayo ee ku saabsan dhacdooyinka halista ah ee lagu weeraray dadka rayidka ah iyo ehelada iyo asxaabtii badanaa ee lagu xasuuqay Gololey. Waxay mudan yihiin baaritaan cusub ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. guud ahaan daawadayaal naga inta warkii oo aad kala socoteen channelka dalka TV Media. fadlan daawada nagu cusubtaan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada hela wararka ku baahino channelkan. aragtidiina halkaas noogu reeba muuqaalkan si share gareeya, laakiin waa inuu muhiim waana ku mahadsantiin daawashadii la socodka warka channelka dalka TV Media.